ku soo dhowaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha. Halkaad nagala socotaan waa Cawaale Official Channel. Qodobada ugu muhiimsan wararkeennana waxaa ka mid ah Chelsea oo xasuuq ba'an u geysatay kooxda Norwich City. Kooxda Man City iyaduna garaacday kooxda Albrighton. Kulanka ugu adag horyaalka Premier League maanta Axada wuxuu dhex marayaa kooxaha Man United iyo Liverpool. Isla horyaalka La Liga kulanka ugu adag wuxuu dhex marayaa kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee loo yaqaan El Clasico. Halka kulanka ugu adag horyaalka Serie A uu dhex mari doono kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Kadib guushii weyneed ee ay Chelsea ka soo hoysay kulankii Norwich City, waxaa bilaabmay doodo sheegaya in tababare Thomas Tuchel kooxdiisu hanan doono horyaalka Premier League, sidoo kalena u dagaalami doonaan difaacashada Champions League. Chelsea ayaa ku xasuuqday kooxda Norwich 7-0. Mason Greenwood, da'yarka reer England, ayaa dhaliyay 3 waxaana goolasha kale ku darsay Hudson-Odoi, James iyo Ben Chilwell, halka Mason Aarons iska dhaliyay gool. Guushan Chelsea ay ka gaadhay kooxda Norwich City waxay sii dheeraysatay hoggaanka horyaalka Premier League iyadoo yeelatay 22 dhibcood, sidaasna ku fadhiisatay kaalinta koowaad ee horyaalka Premier League. Kooxda kubadda cagta Man City ayaa soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka Premier League kadib markii 4-1 ku garaaceen kooxda Brighton, taasoo ay sida carruurta ugu dul ciyaareen. Xiddiga da'da yar ee reer England ee Phil Foden ayaa 2 gool saxiixay, labada kalena waxaa raaciyay Gundogan iyo Riyad Mahrez, xilli ay City taxtaxaash iyo laafyada ku dhamaysatay ciyaarta. Natiijadan ayaa uga dhigan inay kaalinta labaad soo fadhiisatay liiska kala sarreynta horyaalka Premier League. Horyaalka Premier League waxaa shalay laga diiwaangeliyay dhacdo cajiib ahayd, iyadoo ay Everton guul isku qortay oo ay kubaddu mar kale dhinaca kale isku rogtay. Penalties ay kooxdiisu martigelinaysay Watford oo toddobaadkii hore tababare u noqday khabiirka reer Talyaani ee Claudio Ranieri ayaa qaybtii hore Everton ku dhamaatay 2-1 ay ku hogaaminaysay. Hase yeeshee 12 daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta, Watford ayaa la timi 4 gool, taasoo ciyaartana ka dhigtay 5-2 ay guusha ku raacday kooxda Ranieri. Kooxda Man United ayaa gurigeeda Old Trafford ee masraxa riyada ku qaabilaysa kooxda Liverpool, waana kulan adag, weliba aan lagu degdegi karin saadaashiisa marka loo eego sida labada kooxood ay ugu haminayaan guul, sidoo kalena muuqata dhacdooyin yaryar ay ku kala badin karaan marka la eego awoodda weerar ee United iyo Liverpool. Weerarka Liverpool waxaa hogaamin doona Salah, Sadio Mane iyo Firmino. Daafaca Man United ka hor wajahayana wuxuu noqonayaa Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof iyo Joe ay ku soo bilaaban doonaan safka koowaad. Haddii daafaca Man United u ciyaaraan sidii ciyaartii Atlanta ee habeecsanaanta iyo isla jaanqaad la'aanta ay mar labaad soo bandhigaan, hubaal waxa ah in weeraryahanada khatarta badan ee kooxda Liverpool shabaqa soo booqan doonaan, keeni doonaan goolal iyo fursado badan ay samayn doonaan. Sidoo kale dhinaca weerarka Man United waxaa ka soo wada muuqan kara Cristiano Ronaldo, Greenwood iyo Rashford, inkastoo Rashford shaki la gelinayo ciyaartan tamaahiisa. Daafaca ka hor imanaya Liverpoolna wuxuu noqon karaa Arnold, Van Dijk, Robertson iyo Matip oo qaab ciyaareed fiican ku jira. Haddii weeraryahanada Man United u ciyaaraan sidii haafkii dambe ee ciyaarta Atlanta, waxay keeni karaan goolal. Haddii isku xidhnaan, isla jaanqaad iyo isku xidhnaan ay la iman waayaan, waxaa ku noqon doonta kooxda Man United dhabar jab, taasna keeni doonta in kooxda Man United guuldarro u horseedi karaan. 5 kulan ee ugu dambeeyay ee iska hor yimaadaan labadan kooxood waxaanay u kala badisidaan
2 kulan Liverpool ayaa badisay, 1 kulanna Man United, 2 kulanna barbardhac ayay ku kala baxeen. Barcelona ayaa ku soo dhaweyneysa kooxda Real Madrid gegideeda Camp Nou, waana kulanka dunidu ugu jeceshahay loo yaqaan El Clasico. Waa markii ugu horeysay dhowr iyo 10 sannadood iyo ugu dambeeyay ee midkoodna aanu ciyaarta ka soo muuqan doonin labada go'd ee Messi iyo Ronaldo. Beddelkooda indhaha caalamku waxay hayaan labada da'yar ee Fati iyo Vinicius Junior. 5 kulan ee ugu dambeeyay iska hor yimaadaan labadan kooxood, 2 kulan Real ayaa badisay halka 1 kulanna Barcelona badisay, 1na barbardhac ay ku dhammaadeen. Barcelona miyay ceebtii sanadkii hore raacday iska dhiqi doonaan? Sanadkii hore 2 kulan ee La Liga iska hor yimaadeen, kooxda Real Madrid ayaa ka badisay home iyo away. Kooxda Inter Milan ayaa marti qaadaysa kooxda Juventus. Inter ayaa dooneysa inay ku soo noqoto wadada guulaha kadib markii Lazio 3-1 ku garaacday kulankii ugu dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Serie A. Sidoo kalena Juventus ayaa dooneysa inay sii wadato wadada guulaha oo ay guusha ku soo dhawaatay hoggaanka horyaalka Serie A. 5 kulan ee ugu dambeeyay iska hor yimaadaan labada kooxood, 3 kulan Juve ayaa badisay, 1 kulanna Inter ayaa badisay, 1 kulanna barbardhac ayuu ku dhammaaday. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ku egyahay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe noo saara, asxaabta hore noola joogina like-ta iyo share-ta noogu dara. Mahadsanidin.